saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaalka catoosh yare oo ay maslaxo ku jiidayso laamiga ayada oo u sii wada saldhig ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana koox dhalinyaro ah oo watay gaari mooto bajaaj ah ay laamiga ku qabsadeen catoosh yare kuwaasi oo kala degay kooxdaas dhalinyarada ah waxaa hogaaminaysay Maslaxo Saalax oo ahayd xaaskii hore ee catoosh yare maslaxo iyo catoosh yare oo ahaa lamaana isqabay dhawaana loo malaynayo inay kala tageen caana ka ahaa baraha bulshada kuwaasi oo magaalada Muqdisho si weyn looga yaqaanay ayaa hadda waxa ay marayaan heer ay xabsiga isku taxaabaan iyadoo dagaalkoodu meel xun gaaray maslaxo oo sheegtay inay kala tageen catoosh yare ayaa dhawaanahanba magaalada Dhuusamareeb waxa ay ku soo bandhigaysay inay sameynayso xiriir cusub iyadoo samaysatay jacayl cusub hase haatee catoosh yare isagu marna ma uusan sheegin inuu Maslaxo Saalax furay si kastaba ha ahaatee Maslaxo Saalax waxay ugu dambeyn xabsiga u sii waday iyadoo qaab xoog ah oo afduub ah ku wadatay catoosh yare geysay xabsiga Dhuusamareeb waxaana dadku ay leeyihiin catoosh yare ma uusan helin wax gurmad ah oo ka reeba kooxdii dhalinyarada ahayd iyo Maslaxo Saalax oo ayagu xilligaasi u bareeray inay catoosh yare si bareer ah laamiga ugu jiidaan catoosh oo murugaysan oo ay wajigiisa ka muuqato naxdin fara badan ayaa waxa uu muuqanayay isaga oo sawiro laga soo qaaday muuqaalkan waa markii ay qabanayeen mooto bajaajta u saarnaa catoosh yare kuwaasi oo si toos ah ugala degay waxaana laga cabsi qabaa in catoosh yare la dilo maadaama dhalinyaro badan ay maslaxo haysato ayna tahay qof dumar oo carootay sidoo kale caadiyan waa dhaqan la yaqaano in lamaana kala tagay ama lamaana isqaba ay si bareer ah suuqa isugu jiitaan waxaana baraha bulshada qabsaday sawirada laga soo qaaday catoosh yare iyada oo ay dadku fikir kala duwan ka dhiibanayaan dadka ayaa waxa ay ku doodayaan in catoosh yare uu guursaday gabar uusan hayb ahaan aqoon waxaana kula talinayeen inuu guursado qof uu yaqaano si uu u dhalo wax uu yaqaano haddana uu catoosh yare u xiran yahay maantay gabar uusan hayb ahaanteeda aqoon balse uu muddo badan la soo baashaalayay عليك